وحالي نين دادكي هورا كمدها أيا جمع وحو جمعية مالا عظيما مال فربضا ثم صنع يوما طعاما لأهله وقعد على سريره مال فربضا بو سميه مركاسو غري وين وقرح بدن ديستay maalinki dambe yani wuxuu sameeyay saniib yani waliimo weyn iyo sab yani diyaafu diyaari oo dadkii uu diyaariyay ehelkiisa markaas asagina meeshan uu sariirtiisa ku fariistay kursigiisa sariirtiisa kursi jiibkiisa uu saa ugu fariistay aniga meesha boqorka ka yani ka talinay xoolaha badnaay ayaguna hortiisa fadhiyaan markaas cuntada cunayaan wixii kala dunaa ee cuntada aha ee cajiibka aha bay cunayaan waaye asaguna halkii buu ku seexday oo markaas uu lugaha saa soo saartay waxaan wadada asaga marti qaaday oo cuntada uu sameeyo waxaan oo guri ay waxaan oo maalan asaga iska leh marka hada sariirtu ku jiifaade ko markaas wuxuu yiri naftiisa buu la sheekay naftiisa waxa ku soo dhacday naftiisa wuxuu yiri tamataci raaxayso faqad jama'tu laki ma yakfiki wax kugu filan inta cimrigaaga ka dhiman waa ku ururi waan ku shaqeeyay iska raaxayso markaan أنا شقدم بقبل ما ولا حوله فرب بدن بأيه إلا بنجيجو حوله بدن وان ديار صديو ده نفتي يسيبوا كله هو سهم بولا هذا ليه اسكر راحس عن راحين ومركا كودي من ملها فبينما هو كذلك إذا أقبل ملك الموت في زي مسكين ملك الموت ده مركب سوء ما ذيه يريد سوء استعيا سوى صورة مسكين لفقر على الباب كسوق راح آية فخرج إليه بعض الغلمان ننكي يعني حولها بدن لها ولشي ثمت كم لها أصابحي فقالوا له حبيبي ما حاجتكم انا ادونيسا فقال لهم حجري ادعوا الى سيدكم ادعوا لي هي ويروا الى سيدكم وانين مسكين وعلى اللحن ومركي يريدوا تاغي مركي laga furay war maxaa rabtaa ninkii isbaasha sayidka ka ahaan rabaa igu yeera fantaharuhu way canaanteen وقالوا وحيدا مثلك يخرج اليه سيدنا ما ادو كلو سيد كانوا u soo baxaya warwaad idab darantahay iigu yeera waxaad madani madaxweynaha warbax meesha ka dhaqaaq hadii kale waxbaad arkaysa waaba la horreybo haya qaala wuxuu yiri nacam war anoo kale u yimaadaay anoo kale u yeeray iigu yeera ninkan waa nin isku kalsoonde ay bilaash buu cala xun yahay moowi nin isku kalsoon way waa malaku mawd way amar ilaahay buu taaw marhaban marka way ka yaabeen fajaa'u way yimaadeen fa akhbaru sayyidahum bidalik waxa la nin miskiin oo cala luxum baa irida taagano وحولي يقول يرى فقال وحولي هلا ضربتموه وكاسو قالوا والله قرعاي ما هو قرعي وذي وكاسو قالوا ميا لقى هذا الشيء فعاد وصون نقضي ننكي مسكين كهايو يعني فقرع الباب قرعا شديدا مر لبعد بالباب قرع يسكو عليه سحوق وصو قرع وصير هراء هين فخرجوا إليه ويصوا بحين فقال وحولي أخبروا سيدكم أشهق أني ملك الموت إن أنا ملك الموت ما هي أشهق هاي أشهق أبوي مرحبا فلما سمعوا منه ذلك مركي مغلين وقع على الجميع الذل هرت كل ما الذل باقود عوالله وضنحي ودخل عليه ملك الموت مركي بدلق بصيره هي ننكي بو يمدو هذا نفته والرأينه كقال فلما أحضر مركي لسوى حاضري أموال مالكي وربحولي بالحوله كان وحي بالها باي دنعيها لغا سو توري مالكي يسيبو في ريو تحسرني وتاسو وقال وحو يري ده نفتي waa laga qaadi raba uu ogaaday marka yaqiintii inuu gaaray maalkii uu la hadlay la'anaka Allahu min maal Allah ku la'nadu iri maalkan la'nad ilaahay ha kugu dhacdo ay ashqaltani wa adiga shuqlisa an ibadati rabbi ibadati ilaahay baad iga mashquulisay waxa ay qabatay male hal adduunyo haday marka hore kula tagto hadhow waadun eedi balaayo Allah ku rid adduunyo baraka mal waxaan adaa ilaha umbaadii marka doonayso فأندق الله المال مالك إلهي كهذا شيء وقال وحيري هيا لما تصبني محاذي عائسة وقد كنت تدخل على الملوك هيا بي وترد المتقين أنا قد سببت إذا بقرها أنا أبوك اللي جتول وسود وينجري وهبل ما لاحظوا نينك مالك لو يجعل هنا موتا نينك مالك لسيدي سور رئيسي سجيه وهذا الدولة يعني رجع حولها الآيات بيقدر يوم العلم ما ينك لجمع علي حفظيه سوما marka boqorada aad u gali jirtay aniga sababtayda wa tarudul muttaqiintu markay ku yimaadaan waad celin jirtay ama hadii lagu yeerana waa diidi jirtay waqad kunta wahadahay tunfiquni mid igu bixiya fi sabiil shar meesha xun oo dhan baad igu bixin jirtay ya fala amtari'u minka ولو كنت أنفقتني في سبيل الخير خيرك ودني سعداد igu bixin lahayd la nafactuka hadan ku anfici lahaa ثم قبل ملك الموت روحه
malakumada intaa markuu maalkii ku hadlaybo naftuu ninkii ka qaaday waay wansarafa waana la tegay marka adduunya sidaa unbuu uga tegayaa qofku way wasu'ila rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam nabiga waxaa la weydiiyey can akyasi naasi dadka yaa ugu caqli badan faqaala wuxuu yihi nabigu aktaruhum lilmowt ninka mowtka xusidiisa ugu badan aktaruhum lilmowti dikran ninka mowtka xuskiisa ugu badan wa ashaduhum lahu isticdaadan ninka mowtka u diyaar garoobaya ulaa'ika kuwaasu humul akyaas weeyu yidhi nabigu waa kuwa caqliga badan ee asxaabu cuquulka dahabu way la tageen bisharafi dunya adduunya sharafteedii iyo wa karaamati alaakhira aakhira karaamadeedii bay la tageen imaamu dabaraani yaa xadiidka ku wariyey fi lmucjam sagiir buu ku wariyey